dhammaan wafdiga ballaaran ee wasiirka arrimaha gudaha dowladda Puntland uu hogaaminayo ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo wasiirka haweenka iyo wasiirka waxbarashada ku-xigeenka waxbarashada iyo xildhibaano baarlamaanka golaha wakiilada Puntland ka tirsan ayaan uga mahadcelinaynaa booqashadoodii maanta ay noogu yimaadeen oo runtii ahayd kulan shaqo oo ballaaran oo arrimaha wasiirku ka hadlo dhan aan uga wada hadalnay xooggan aan ku saarnay in dadka halkaan degan ay yihiin dad walaalo ah darisa Soomaali ah hogaankii Soomaaliya iyo maaragtay taariikh wanaagsan halgankii Soomaaliyeed xurriyadda lagu keenayna ku lahaa dawlad dhalinta dambana xilliyadii dagaalada ka dambeeyana asaas xooggan u ahaa marka in magaaladan oo noqotay maalmahan dambe magaalo la daris ah qaraxyo iyo dilal qorsheysan iyo dagaalo daba jooga kuwaas laakiin magacyo kale loo bixinayay inaan sidii aan isaga kaashan lahayn arrintaas oo amniga deegaankan iyo deegaamada ku xeeran magaaladan iyo deegaanada ku xeeran aan si wanaagsan oo wada jira oo hal far ah aan uga howlgeli lahayn isagana dhex bixin lahayn dadka fidnada ka dhex wada dadka walaalaha ee halkaan wada degan iyo kooxaha argagixisada ah ee biyaha cakiran ka dhex ugaarsada dadkana argagixiya dhibaatada badanna u geysta waxaan ka tacsiyeynaynaa mar kale dhibaatooyinkii tirada badnaayo halkaan ay ka geysteen oo ugu dambeeyay dilkii guddoomiyaha waxay Puntland galmudug dhankeeda ballan qaaday in wada shaqayn dhammaystiran oo dhanka amniga ah aan wada yeelano oo heerarka kala duwan leh dowladda Puntland waxaan sidoo kale xoojinaynaa iskaashiga dhinacyada kala duwan leh oo amnigu hadduu hagaago noloshii bini'aadamka iyo noloshii dadka halkaan way hagaagaysaa ganacsigii baa bulaalaya dhaqaalihii baa kor u kacaya yacni waxaa kor u kacaya magaaladan oo ahayd xudunta ganacsiga Soomaaliya ayaa soo noqonaysa marka waxaan runtii halkaan ka muuqata in bog cusub oo walaaltinimo iyo wada shaqayn ah labadan dawladood oo dariska ah ay wada yeeshaan oo walaalaha ah in maaragtay dambiiluhu uusan asagoo reer ah ku dhex jirin meelna ku dhex gaban ama asagoo koox maaragtay argagixisa qof gabaad siiyey aan lagu dayn waa hebel oo ka tirsan deegaankii alla daayo si wada jir ah oo xooggan in looga falgalo looga howlgalo dhinacyada kalena oo wasiirku uu xusay oo ah dowladdan Puntland mudday jirtay dowladdeennuna curdun weeye in iskaashi dhanka isweydaarsiga khibradda iyo waayo aragnimada aan la yeelano hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland oo baarlamaan leh oo hay-ado fulineed leh oo maaragtay sida dastuurka Soomaaliya uu qorayo iskaashigii loo baahnaa in dhankaas aan u bedelno dhammaan hawlaheena marka waa mar kale waxaan leeyahay wasiirada halkaan yimid way mahadsan yihiin madax odayaasha argagixinayaan ka ilaalinaya oo ganacsigooda ay baadda ka qaadaan ka badbaadinaya inaan dadkaas nahay inay ogaadaan waana mahadsantihiin wafdigana waxaan u rajaynayaa joogid iyo safar wacan inta baxaysa annaguna insha Allah maalmahan magaaladan ayaan dhinacaan ayaan shaqada ka haynay waana sii wadaynaa